السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك، كل عام وأنتم بخير. سلامات من كل آفات. سو dhawaada saaxiibayaal, waa qaybtii labaad ee qisadii cajiibka lahayd ee ku cibro qaadashada badnayd ee Sultaan. Qisada qaybteedii hore waxay nagu joogtay markii walaalkii loogu yeeray ee lagu yiri wiil walaalka iyo Sultaan la yiraahdo oo taqaana ma jira. Haa ayuu ku jawaabay. Waxa lagu yiri xaalkiisii waa looga sheekeeyay inuu isbedelay, toobad keenay, masaajidka Ilaahay oo xamilay, Quraanka oo xifdiyo. Waxa uu ku jawaabay ma aaminayo ilaa indhaheedan ku arko. Markii uu yimiday iyo wixii dhacay baynu ka sii anbaqaadina. Wiilkii walaalkii waa uu yimiday. Markii sidaa uu yimiday goobtii wiil walaalkii joogay iyo masaajidkii ballantii loo qabtay oo ka soo baxay oo masaajidka yimiday. Isla markuu masaajidka sidaa u soo galay waxa uu dhaha ku dhuftay walaalkii oo masaajidka jiifo hurda. waa ninkii walaalkii taajirka ahaa ee mataqaanay mukhataraadka ganacsan jiray oo wuxuu arkay ku jiifa dhulkaas ka jiifa siiro tawaadaco miskiinimo ah masaajidka dhexdiisa banaankaas ka jiifa oo fresh iyo waxba ku jiifa oo nuur ka baxayo oo tawaaduc ka muuqato oo diin ka muuqato oo toobadii ka muuqato. qofka toobada si dhaba u toobad keenay iyo qofka iska beenbeenta ahina way kala yihiin. aad buu ugu farxay oo la tacajabay xaalkiisa iyo siduu isku bedelay oo qoorta iyo laabtuu geliyay. aad buu ugu dhagay oo ku farxay oo dhunkaday. uu soo dhaweeyay wuxuu yiri maanta laga bilaabo inaad raacisa gurigeyga ayaan ku kaxaynaya maadaama aabana aanu ku arki karin oo mar hore agtiisa ka dhimatay oo nin daroogaysta oo weyn oo ka aaminsan yahay oo noloshooda kugu ogyahay. haddaad guriga tagtana aad dhib kala kulmayso magaalada aad dhex mari karin aad raacaysaa gurigeyga baad raacaysaa tuuladeedii iyo magaaladeedii halkaas ay ugu noqonaysaa. dhowr usbuuc markuu walaalkii la joogay ilaa ninka nin shaqo u bartay buu haye waxa uu goostay inuu suuqa tago khudaar soo iibiyo isna dib u sii iibiyo inuu noqdo ganacsade khudaarta ka ganacsada khudaarta soo jumlado dibna uu sii iibiyo. arrintii buu go'aansaday khudaartii buu soo iibiyay. arrintaasuu ku dhex jiray ilaa laga gaadhay xajkii. waqtigan walaalkii israacin waa ramadaankii laga gaadhay ilaa xajkii laga gaadhay oo muddo la 3 bilood ku dhow u dhaxayso ama 2 bilood bas ka dheh ayuu ku jiray ganacsiga caynkaas inuu khudaar soo jumlado kadibna sii iibiyo isagoo iska ilaalinaya inuu walaalkii culays ku noqdo oo gacmaha hoos dhigto oo raadinaya inuu isku filaado. waana sida loo baahan yahay dhalinyaro qofku markuu dhalinyaro yahay inuu isku filaado oo qof bili aadan gacanta hoos hoorsan. waana sharaf shaqadu shaxaadkan ceeb. Sheekh Maxamed Saawi wuxuu yiri waa la soo wacay waa sheekh sida warinaaye waa la soo wacay xajkii maalmihii xajka la soo wacay buu sheekh halow ma garanaysaa Sultaan haa ninka Sultaan ahaa Allah u gargaaro shil khatar u galay isbitaalka caynkaas ku jira sida arrinkiisa weeyaan. waan orodnay waxaan tagnay isbitaalka loo sheegay baan tagnay buu yiri waxaan aragnay buu yiri wiil ninkii waxaaladiisu khalaas tahay dhakhaatiirtii way noo diideen in la booqdo oo loo galo qolka qalliinka la geliyay. xaaladiisu aad bay adag tahay qof loo ogol yahay inuu u galaa ma jirto. waan soo noqday buu masaajidkii baan ku soo noqday dhowr maalmood ayaan u duceynaynay jamici baan uga duceynaynay qisadiisii baan meel kasta gaarsiinay masaajid kasta oo magaalada ka mid ah magaalooyinka nagu dhow waxaan amarnay ninkaas inaan qisadiisa la wariyo ummadda loo sheego sidoo toobadkeena loona duceeyo. nimankii ay isku xulufada ahaayeen ay saaxiibada ahaayeen ee ehlu marqaanka iyo ehlu daroogaysta ahaa oo dhanba masaajidkayga yimid. masaajidka ma soo gelin balse banaanka igu sugayeen. markaan salaada ka baxnay iyagu may tukanay banaankay taagnaayeen buu yiri. markii aan banaanka u baxnay ayaa waxaan ku war helay niman fara badan oo ehlu taraag ah oo sugay. yaa sheekh assalaamu calaykum iska war ma fiican tahay ninkaasi ma toobadkeeni ma runba ka dhaadhici laaday wali haa baan ku yiri
maalmo kadib waa la soo wacay buuri walaalkii baa soo wacay wuxuu yiri sheekh waa laga soo saaray qolkii qalliinka waad iman kartaa waad soo boqon kartaa waan u tagay buuri waan ziyaaranay waan soo boqonnay markaan saa ugu tagay ayaan dul fadhiistay buuri jirkiisu meel fayo ma jirto meel dhaqaaqaysa ma jirto quraankan ku dul akhriyay waxaan xasuusiyay masaajidkii waxaan ku yiri waxa ku xiisay quraankaad xifdinaysay masaajidkii baa ku xiisay dhikrigii baa ku xiisay aduu jacayl baan ku beeray oo waxaan xasuusiyay nimcadii iyo wanaaga ku dhex jira baan xasuusiyay waana wax loo baahan yahay oo min sunnah qofku markuu xanuunsanayo inaanan xagga xun wax laga tusan loodan khalaas baa tahay dhimanaysa in la loodan ee la yiraahdo wad wanaagsan tahay oo wixii wanaagsan oo qaban qofka looga sheekeeyo markan arrimaha uga sheekeeyay ilin ayaa uga soo booday ilmihiisa buuri ilintaasi inay tahay inuu ku farxay markan xasuusiyay masaajidii iyo wanaagii markan xasuusiyay inay tahay iyo inay tahay inuu ka murugooday quraankii oo xifdinayay ee uu ugu talagalay muddadii uu goostay 7 bilood ahayd inuu ku xifdiyo ee xanuunkan ka soo dhaxgalay kadib waan ka soo baxnay buuri hooyadii ayaa haddana soo boqotay maalmo kadib aabihii waa loo sheegay aabihiisa wuu diiday oo loogu taag waayay oo aabihii ninkaasi hay soo marinina bay kaga dhigtay isaga oo wali inankiisa ma aqoonsan uu diiday hooyadii markii ay timiday ee soo boqotay ee wiilkeyga xaalkiisa ay aragtay ayuu ku yiri hooyo ii wasiis maxaa loo wasiisinay waa jirkiisa waa burburay cod biyo suuf bay soo qaatay oo sidaasii wajiga iyo xubnihii weysida ugu marisay markay sidaa ugu marisay ayuu ashaatay laa ilaaha ila allah muxamed rasuulullah fafaadat ruuxuhu naftaasay kaga baxday nabigu muxuu yiri salawaatullaahi wasalaamu calayhi man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah dakhala janna qofka hadalkiisa ugu dambeeya uu noqdo laa ilaaha illa allah jannadu gale hadalkiisa ugu dambeeyay shahaadateen ku noqday waa noo yeedhay buuri waa nimidnay qisadiisii baa faaftay ay daroogayste ku noolaa waddanka oo dhan intaasoo kiiloomitir ay isaga yimaadeen iyagoo xataa sita jaabaada ku sita janaasadiisi ka soo qayb galay intaan la aasin ka hor baan u yeedhay aabihii buuri way diiday waan ku adkeeyay ilaahay baan kugu dhaariyay intaan inkaaga la aasin imo uu yimiday buuri markuu sidaa u yimiday ayuu wajiga sidaa uga feeray wuxuu yiri wallaahi kan inankayga maaha inankaygu nin madow buu ahaa ninka wadnacad inankiisii ag joogay baa yiri buuri aabbo wallaahi waa walaalkay waana wiilkaagii odaygii oo himba afka jabsaday wiilkaygii sakay cafi waan ku dulmiyey odaygii wuu ku dul calaacalay sakay cafi aabi sakay cafi ayuu ku waashay ugu dambeyntii wiilkii sidaas ayaa lagu aasay waxaana ka soo qayb galay intaasoo kun oo qof oo ay u badan yihiin nimankii daroogista ahaa rag badan baana sababtii ku toobad keenay intaasay qisadii la yaabka laga suldaan ku eeg tahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.